wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland mudane Maxamed Biixi Yoonis oo muddo dhowr maalmood ah safar shaqo ku joogay dalkan Britain ayaa maanta ka ambabaxay London isagoo u sii jeeda Jamhuuriyadda Djibouti. TV-ga qaranka oo ku booqday hoteelka uu ka degan yahay magaalada London si aan wax uga weydiino socdaalkiisa iyo waxyaabihii uga qabsoomay safaradiisii. Wariyaheena Khadar Maxamed Aadan oo weydiiyay wasiirka su'aashaasi ayaa wuxuu wasiirku kaga jawaabay sida tan: sidaa la socotaan uu nimid halkan aan la kulanno madax kala gedisan oo kamid ah dawladda Ingiriiska. waxa uu weynaa aan la kulannay wasiirka Afrika Mark Simmons oo aanu la yeelanay wada hadal dheer shalay galabtii oo wada hadalladaas ku saabsan aynu qadiyadda Soomaaliland mar labaad u sharaxno inay gooni isu taageedu arrinka ugu weyn ee Soomaalidu qabtay tahay inay Somaliland aad iyo aad u dadaashay oo ay xagga nabadda, xagga horumarka, xagga dhaqaalaha aan aad iyo aad u qabansanay. waxa kale oo aan la hadalnay waxaan la yiraahdo travel advisory ee ku lug la safarka ay dadka Ingiriiskii u tagayaan Soomaaliya iyo Somaliland oo aan u sheegnay inay labadii isku qaseen oo travel advisory ay soo saaraan waxyaabaha ku la qaybani ay ka wada mid yihiin wixii xamar ka dhacay ayadoo Somaliland waxba ka dhicin ilaa 2008 taasina ay dhaawac u geysanayso dhaqaalaha iyaga iyo horumarkooda sida ugu degdeg badanna aan jecelahay in nala kala saaro oo annaka iyo Muqdisho la sukaayo xidhin waayo dhibta weyn ee Muqdisho taala meeshoodu waa nabad. Ingiriisku nala shaqeeya ayaga tababar xoolana siiya. marka waxaan u sheegnay wasiirka inay cadaalad darro tahay aan jecelahay in si degdeg wax looga qabto. wuxuu nala go'aansaday wuxuu idinka iyo maaragtay xafiiskaygu iyo xafiisadeeda isu taga ka wada hadla ka shaqeeya sida wax looga qaban lahaa. waxaan ku rajo qabnaa in insha Allah aan degdeg uga qaban doono. waxaa jirtay shalay toole inaad chatting house ku yeelateen shir maxaa idinka qabsoomay sidee chatting house qudiyad waxa soo casuuntay dad fara badan oo kala gedisan oo aqoon-yahan badan oo wasaaradaha Ingiriiska kuwa nala shaqeeya ay ku jiraan dad badan oo jaamacadaha ka shaqeeya oo aad iyo aad u tixgeliya arrimaha Somaliland ayaa kamid ahaa. ayaga qudiyadooda waxaan siiyay presentation aan u sharxayo halka wadciga Somaliland marayo heerka aanu gaadhnay iyo in ay qadiyadda isu taaga Somaliland mid aan marna laga noqon karin ay tahay taas oo ay tahay inay dadka reer Somaliland goosteen dhowr iyo 20 sano imika ay sugayeen inay gooni isu taagooda helaan hase yeeshee intii hore aanay jirin dawladda la hadlaa. iminkana aanu wada hadalano socdaan dawladda xamar oo aanu filayno inay degdeg uga soo bixi doonto sidaan gooni isu taagi lahayn. ayana aad iyo aad bay ogsoon yihiin qadiyadda Somaliland mid dadku goostay inay tahay oo aan cid kale wax ka qaban karin dadkuna ay goosteen inay gooni isu taagaan. insha Allahna degdeg ay u dhamaan doonto insha Allah ay ugu muhiimsanay. waxa jirtay inaad soo martay wadanka Masar maxaa ka soo qabsoomay? wallahi horta kana ma arrinka Masar gelin halkan Ingiriiska qudideeda waxaan la kulanay dad fara badan oo kala gedisan oo ay kamid yihiin parliamentarians. waxaan la kulanay qowlan waxna tartay ee la yiraahdo DFID ee mashaariicda badan siisa Somaliland oo ay laftooda ugu mahadnaqay waxtarka ay siiyaan iyo maaragtay dadaalkay ka galeen shirkii Brussels iyo aan u sharaxnay inaan ugu faraxsanahay haddaan nahay Somaliland in loo sameeyay special arrangement arrinkii New Deal-ka oo caalamku arkay in Somaliland horumarkeedu meel sare gaaray oo aan la mid ahayn ka xamar wixiina si fiican loogu kala qaybiyay iyo qaybta ka qaateen halka lafteeda oo dawladda Ingiriisku lacag xoogaa oo kala ku dadkay si hore bixin jirtay Brussels ka dhawaaqday. taana waan ugu mahadnaqnay. parliamentarians waxaan ku soo casuunay inay yimaadaan Somaliland waxaan weydiisanay inay qadiyaddeeda u sharxaan oo la hadlaan dawladda Ingiriiska maadaama aynu nahay wadan aan cilaaqaad dheer lahayn wadan aad iyo aad isugu xidhnayn inay roolkii u banaanaa iyo mas'uuliyadii saareed si xoog looga soo baxaan. marka wasiir halka in Somaliland qaybteedii la siiyay macalin toos baa loo siiyay baldeed weli runtii deesaday maaragtay aan ku qoray special arrangement waxa la yiraahdo toos baa loo siinayaa inagu habeysanahay hore inuu la dhigaraynayeen European Unionku
iyo waxaan laga Somaliland Development Fund ee DFID iyo danidaba ka mid tahay waxa I think aad u tixgeliyaan caalamkan iyo donorskii dadka qaybta dhammaantood dawladaha deeqda bixiya inay Somaliland shilinkii la siiyo loogu taliyo isagoo xisaabtiisa loo yahay oo wax midnimo ku jira aanay jirin marka waxaan filaynaa marka imika la bilaabo oo wasiirkeena planning-ka iyo dad xukuumadeena aad uga shaqeynaysa wasaaradda finance-keena sidii mashaariicda aan qoranay iyo waxa inooga soo baxay special arrangements dhaqso loo siiyo insha Allah shirkadaha warar kala duwan waxa ugu muhiimsanaa waxaan la kulanay jaraa'id fara badan oo wadankan Ingiriiska ka soo baxa oo ay noo arrange gareeyeen xeebadan aan wada shaqeynay Portland waxaan la kulanay BBC-da oo afar program oo kala gedisan aan ka qabanay oo kamid ahaa maanta Focus on Africa television-ka Roger Hearing oo soo soo bixi doona habeen dambe oo isla ahaa xagga business-ka Focus on Africa oo radio-ga Soomaaliya waxa ugu muhiimsan inta uu doonayay inaan dadka gaarsiino waxa weeye qadiyada Somaliland shacbiga Somaliland ay goosteen gool isu taagooda iyo xorriyadoodii oo la soo noqdeen in ay tahay wax arrin degdeg ah oo aan doonayno caalamka ogaado si dhaqso badan aan u jecelahay nakiyo walaaladeeda Muqdisho inaan u kala baxno anagoo walaalnimada iyo jaalnimada iyo ehelnimadana tixgelinayna hase yeesheen laba wadan oo kala gadisan oo jaara oo kala gadisan caalamku arko inaan noqono taasaan jaraa'idka iyo BBC-da iyo telefishinada Ingiriiska oo aad ugu sharaxnay su'aalo fara badan bay naga weydiiyeen of course dadka kama qarsoona reality iyo Somaliland halkay gaadhay 22 sano inay ishabaysay inay nabadeedii adkaysatay inay tahay danta caalamka israafka Somaliland inuu wax badan ka tari karo xagga nabadgelyada xagga burcadbadeedka xagga la dagaalanka argagixisada intaana aanu dawladaha aanu jaarkanahay ama Soomaaliya ama Ethiopia la mid aanu jaarkanahay aanu nahay cover ka ilaaliya aad iyo aad cilaaqaad culus aan u leenahay oo aanu qabno gooni isu taagga Somaliland inuu noqon doono mid caalamka waxyaabo badan ku tara sida isu dhiseen iyo institutionskooda oo habaysteen iyo dimuqraadinimadooda iyo doorashooyinkooduna ay tahay waxyaabo caalamka intooda badan khaasatan Afrika wax badan ka baran karto marka waxaanu qabnaa shuruudihii ummadii lahayd oo dhawaan buuxinay inaan imika ay dhaqso iyo sida ugu degdeg badan Somaliland israafkeedu u dhaco oo Somaliland waqti badan oo ay suu karto badan aan jirin mudan wasi waxaad soo martay dawladda Masar maxaa inooga soo qabsanay Masar qulligeeda waxaan uga soconay wasiiradeeni Samson Abdi oo saawlo socotaan wasiirad aad iyo aad u dadaal badana waxaan la kulanay oo ayada aad u xuseynay wasaaradda tacliinta sare waxaan la kulanay wasiirka tacliinta hoose iyo wasiirka tacliinta sare oo isagu yahay Deputy Prime Minister waxaan la kulanay wasiirka xigeenka khaarijiyada ee Masaarida waxaan la kulanay Arab League waxaan la kulanay Sheekh Weyne haysta Jaamacadda Al-Azhar حاجة تعليمته وحي وزارة وزيرة أدوية ستين معلمين للصيو حي بقول معلم بعض يصيرنا سكولان وحدة كلا قبلنا سكولان ودين دسنا أسر كوحنا ودين سنة سكول لسان وانا جا أخبران إن سكول كهرباء الجاهل ولسه الجامعة عندنا أسر لا تير لابسه وحي نوو بلان قاعدين سكول شبينا الصيان وحنا كلام قاعد سنين ندق دوبه حنا حفيز كفرنا ودنت هي حفيز إلهية arday badan oo reer Soomaaliland joogta oo u baahan xafiis ay hawlahooda maamula xiriirna u noqdo ayana inay xafiis ka furtaan arrinkan waan eegnaa bay yiraahdeen waxaan ku karsoonahay inay si fiican ugu dhacday aanan u sharaxnay goon isu taaga Soomaaliland inuu la mid yahay koodii ayagii Syria ay kala qaateen oo kala loo wadano isku jiro walaalay ahaayeen way kala noqdeen tiimid labadana la doonaynaa wana naga garabsadeen wasiir waxaa jirta inaad imika ku socoto in dawladda Djibouti balad halka dawladdu istaagno Djibouti lafteeda waa wadan walaalnahay waa wadan jaarnahay waa wadan cilaaqaad fara badan naga dhaxayaan waa wadan isku xilxilanahay waa safarkii ugu horeeyay tago intaan mas'uuliyaddan wasiirnimada qaaday
waxaan la filayaa inaan la kulmi doono madaxweynaha iyo wasiir al-khaarijiyaha iyo prime ministerka iyo wasaarad fara badan iyo ganacsatada iyo dad fara badan oo daneynaya arrinka Somaliland message-ka aanu sida ama fariinta aanu sida ugu weyn ay tahay Somaliland inay ishabaysay inay diyaar garowday inay doonayso inay si degdeg ah oo aan dhaqso ugu badan in aan gool isu taageeri u dhagoobo oo ay dawladda Djibouti iyo dawladaha jaarka oo dhammaan degdeg annaka walaalahay sidii wax loogu qaban lahaa si aanu kala tagi lahayn annaka walaalaha ka shaqeeya ugu dambeyntii amidana wasiir wadamo badan ayaa soo martay waa maxay fariinta aad u marinayso shacabka Somaliland aad baad u mahadsan tahay sida ay ula socoto dadka faraha badan la kulmay intooda badan aad waxay u taxgeliyaan xorriyadda qowlka aad u wanaagsan ee Somaliland gaadhay ee saxaafadeeda iyo TV-geedu ay madax bannaan yihiin oo wax kasta ka hadlaan hase yeeshee waxaan ku talin lahaa markay noqoto qadiyadda Somaliland mucaarad iyo muxaafid iyo siyaasi iyo saxaafad inaynu arrinka qaranka meel uga soo wada jeesano oo aanu qadiyadeena meel kasta gaarsiino oo qof kasta oo ka hadlaya danta Somaliland oo caalamka u sheego Somaliland inay goosatay inay gaariso taagto mid aan ka noqonayno way dadka goostay wax siyaasi ku lug lamaha waa arrin shacbiga reer Somaliland ayagu ay goosteen in la qadariyana ay tahay waxa ay doonayaan inay sidii ugu dhaqso badneed ee loo fulin lahaa ku dadaalo marka waxaan ku talin lahaa dadka reer Somaliland inaynu hawsha ka midowno inaynu u sinaano inaynu qadiyadeena aan madmadowgelin inaynu inaku noqono kuwa nin kasta meesha jooga ambassador ka ah ee qadiyadda Somaliland caalamka u shaqeeya oo aanu ka midowno ka walaalowno oo aananu cadawgeena siinin war khaldan oo waxina yaala saasan ku talin lahaa ilaahayna hayna qabto insha Allah ana wadanimadeena iyo go'aansitaageena dhawaan bayna dhici doona ilaahay waa mahadsantiin mudane wasiir aad ayaan kaaga mahad celinaynaa waraysiga khaaska ah nasisay Ismaan Maxamuud Jaamaca telefishinka qaranka Somaliland London